munaasabadan oo lagu soo dhaweynayay talo ku-xigeenka koowaad ee ciidanka booliska Soomaaliya Saraakiil Guud Cismaan Maxamed Cabdullaahi Kaniif ayaa lagu qabtay dugsiga tababarka booliska ee General Kahiye waxa ka qayb galay wasiiro xildhibaano saraakiil sarsare safiirka Soomaaliya u fadhiyay Kenya iyo mas'uuliyiin hore xilal ugu soo qabtay Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa u hambaliyay xilka cusub ee loo magacaabo taliyaha waxna uu ballan qaaday in uu garab istaagi doono generaalada kala gidisan oo dhammaan asxaabtayda ah si gaar ah ayaan ugu mahad celinayaa sida wanaaga badan ee ay noola soo dhaweeyeen Cusmaan Cabdullaahi anigoo ku hadlaya shucuubta ku nool gobolka Banaadir dhammaanteen iyo magacaygaba waxaan ku leenahay soo dhawow garabkaagan taagannahay haddii alle idmo waxaana ku shaqayn doonaa tilmaantaada waxaa tahay abaanduulihii ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaa jooga taliyahaagii oo asagana aan hubo inaad aad iyo aad isu fahmaysiin anigu waa idin jooga oo aan hubo inaad kalsooni badan aad ku qabtid dhammaanteen annagoo gacmaha ishaysana ayaan rajaynaynaa inaan ka miro dhalinno howlaha naloo igmaday taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Saraakiil Cabdi Xasan Xajaar oo ka hadlay soo dhaweynta Saraakiil Guud Cismaan Maxamed Cabdullaahi Kaniif ayaa sheegay in ciidanka booliska ay had iyo jeer u taagan yihiin u adeegida shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay generaalka cusub waa ku soo dhaweynaynaa waa ku hambalyeynaa waxaad nagu soo kordhin doontaa adigoo awalba ka mid ahaa booliiska mas'uuliyad iyo xogogaalnimo aad nagu soo biirin doonto saaka maraan la hadlayay hogaamada iyo fadhiyada booliiska Soomaaliyeed waxaan ku yiri muxuu ahaa Cismaan nuguma cusba ee idinka leedinka soo dhex qabtay laakiin anigu waa idinku cusbaayo isagu ma taqaana booliiskuna sidaas wuxuu jecel yahay in laga dhex doorto dhexdooda marka iyaga naftooda oo hambalyeeyaa dhammaan booliiska oo dhan iyo hogaamada wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo gabagabada xafladda hadal jeediyay ayaa ka hadlay soo dhaweynta taliyaha iyo dadaalka ay sameynayaan ciidamada booliska maanta waxaan farxadeena ka soo qayb galo soo dhaweynta taliye ku-xigeenka koowaad ee ciidanka booliska Soomaaliyeed General waxaan ku leeyahay hambalyo waxaan kugu hambalyeynayna maaha nin cusub ma tihid meeshaan soo joogtay muddo ilaa korneel ku soo gaartay hadan laba hambalyo isku raacday xidigna waa lagu diro janno waa laga dhigay taliyihna uu ku magacaabo madaxweynihii marka waxaan ku leeyahay hambalyo Haajir Abdulqaadir RTN TV Muqdisho